dhalinyarada beelweynta Maxamuud Jibraa'iil Youth ayaa maanta kulan balaaran ku yeeshay gudaha magaalada Wajeer. Kulankan ayaa ahaa mid wada tashi ah oo loo goleeyahay daragorowga iyo qorshaha la xiriira doorashada guud ee dalka laga filayo inay ka qabsoonto sanadka 2027. Muddada socday kulankaasi ka qaybgalayaasha waxay si qoto dheer ah isaga wareysteen muhiimadda ay leedahay in dhalinyaradu yeeshaan aragti midaysan iyadoo ay hosta ka xariiqeen in dhalinyarada beesha aysan ka naxmuuqan oo kaliya codeynta balse ay horseedi karto in beesha ay u bedelaan jiha wanaagsan oo dhanka siyaasadda. familka ama qoyska Maxamuud Jibraa'iil oo ka tirsan Ceelas constituency maanta oo maalin Jimco ah taariikh 19 bishii 6 sanadka 2026 waan kulannay waxa weyn oo ka hadlaynay waxay xoojinta midnimada qoyska. Waxaan aragnay in qoyska codkiisa aan la helaynin ama ay aan la maqlaynin. Sababta loo maqlo weyn ay tahay in macnaha kuraha iskala daadsan yahay qofba meel gooni u fakanaya qof meel gooni u fakanaya midna meel gooni. Marka waxaan ku tashanay in cilada ayadaan ka baxna aan codkayna meel isku keenna hal qof ku hogaansana hal meel kooda codayna from 2027 markay maadamka gaarsan 2027 campaign la gaaray election in hal meel wada codayna oo hadii ay noqoto governor hadii ay noqoto women rep senator MP qofkii kursiga rabana aan la fadhiisana oo la tashan maxaa noo haysa maxaa noo ballan qaadaysa aan la heshiino oo macnaha noqona dadka go'aanka madaxda soo galay doonta gaaraya sanadka 2027. beesha maanta waxay u kulantay ama ay ka wada hadlaysay dhalinyarteeda in aan ilaahay hadduu yiraaho 2027 ay cid ka midowdo ay ka midowdo siyaasi ahaan dhaqan waa laga midaysnaa oo cid mid dhaqan ka midaysan oo ay ahayd horaan haddana waxay haminaysaa inay siyaasi ahaan u midaysnaato hadduu ilaahay yiraa 2027 come inshallah cid waxa kale ay leedahay in ay 2027 hadduu ilaahay yiraa representation ay ku lahaato county assembly Wajeer hadduu ilaahay yiraaho men qorshaha ay leedahay ama hamiga ay leedahay waxa kamid ah in ay county assembly ay representation ay ku lahaato national government sida amal ay representation ku lahaato general county Wajeer in ay representation ay ku lahaato intaas ay maanta cid isku maadi beesha ka wada tashatay isku wada maafaqday in ay hal jid isla marto hal hamin ay lahaato muddo dheer oo wax falanqeynay kadib waxaan ku heshiinay in maaragtaa cid ay midaysnaato siyaasadda wax weyn maaragtaa aan ka bedeli doona insha Allah taala cidii aad ay u midaysan tahay in badan oo dayacneed kadib maanta waxaan go'aan ku gaarnay anagoo dhalinyaro cidda in maaragtaa siyaasadii aan bedelno oo maaragtaa horumar aan gaarsiino sidoo kale kuraasta iyo maaragtaa xaq naga maqnaa aan u dagaalano annaga oo midaysan oo beeshi Maxamuud Jibraa'iil dhan iskugu imaadnay waxaana ka wada tashanay sanadaha soo socdo 2027 saam ku midowno midaan nahay aan hal siyaaso ku walaana waxa kale oo ku tashanay governaha senatada women repta MPga waxa kulli dhamaantood ku u taagan musharax dhan oo taagan inaan hal far ku ahaano annagoo dhan oo farto ah oo Maxamuud Jibraa'iil dhalinyaradiisa ah kulli waxaan nahay hal far hal qof aan isla wada dooran doonaa hal meel aan ku wada xisaabtami doonaa qofkaan la xisaabtami doono oo madaxda ahna waxa inaas aan sharciyo ka dhigano ama hadallo go'an ayaan isku raacnay kulankan ayaa ugu dambeyn ku soo gabagaboobay muwaafaqa iyadoo ay dhammaantood isku raaceen inay isbedel weyn ka dhex abuuri doonaan beesha dhexdeeda. Maxamed Kulmiye, warbaahinta BN TV, gudaha ismaamulkani Wajeer.